abaaraha ka jira degmada Garadeg ee galbeedka gobolka Sanaag waa mid ay la ildaran dadka iyo duunyada deegaankan qayla dhaanta iska soo yeedhaysa bisha waa kulaba xukuumadda talada haysan hore iyo haatan ma jirto gurmad lama jeeran karo oo ay gacan ku siinayso dadka ay abaaruhu halakeeyeen halka jaariyada deegaankana aanay u dhegtaagin qayla dhaantaas biyo la'aanta iyo haraad ayay dadku liitaan baad la'aanta iyo masna duunyada ayaa la ildaran duunyo badanna way abaaracday waa deegaanka degmada Garadeg maamulka degmada Garadeg iyo guddiga abaaraha ee degmaduna waxay dadaal badan oo daacadnimo iyo nasteexo ku duugan tahay u galeen sidii ay ugu gargaari lahaayeen dadkooda abaaruhu halakeeyeen waana kuwa majaraha u xidhay sidii ay ugu gurman lahaayeen dadka iyo duunyada abaaruhu ku habsadeen baaqa ay dirayaana waa mid joogta waa maamulka heer degme deegaanada raxmadda alle ku biliqtirina waa kuwa ay ku kulmeen bulsho badan oo miciin biday inay dhaanto deegaanada kale walowse ay jiraan biyo la'aan maamulka degmada Garadeg oo ay wehelinayaan guddiga abaare heer degmo ayaa gaarsiiyay booyado biyo ah dadka iyo duunyada deegaanka halkan aan joogno maanta waxa weey waa bangaal meeshii la oran jiray weeye runtii waa meel in badan ay qayla dhaanta oo manuhu ay ka soo yeerisay marka waa meeshii dadka dhinaca waqooyiga loogu soo guuray weeye ummadii ugu badnayd ee dhinaca Banacade iyo Nugalka Tiiba soo gaadhay biyo qabatin ma laha xooluhu waxay kala kulmeen daaqi iyadoo aan dhirtuna soo bixin oo aan roobkii helay aan wax fiican soo saarin biyo la'aanna way kala kulmeen marka imika biyuhu horeeyay soo gaarsiinay cuntaduna xagga marka la eego daaqa waa ku gabaabsi runtii waxa kale oo ka jirta meeshan dhaxan wax la yiraahdo ayaa ka jirta waa meelaha u baahan ma garanaysaa in waxaan hugal la yiraahdo sida bustayaasha oo kale iyo xubin ka tirsan golaha deegaanka Sahal Maxamed Ismaaciil Sahal Dhako ahna guddida abaaraha ee degmada isbarbixintan halka soo gudbinayna waxay ku urursan tahay intii maayir soo bixiyay iyo inta xaqiiqda hadda aan dhihina ku aragtaan sababtoo qofka bilaanka waxa looga warramo indhihiisa saara isku mid maaha oo waxa la yiraahdo war indha dhaama halka waxa ka taagan xaalad bidaalinimada ugu darnayd oo cunto la'aan dad iyo biyo la'aan ba eerida hadda dadku yaalaan waxa weeyeen deegaanka isugu yimi waa kii ka soo guuray dhinaca Nugaasha iyo dhinaca waqooyiga waa deegaan aad iyo aad marka cabbiis agto u yar dadka yaalaana markaad aragto aadeen arkayso inaan intan wax qaadahayn doori waxaan nahay guddiga abaaraha ee degmada Garadeg waxaan soo meesha la yiraahdo Bancad meesha la yiraahdo Bangaal oo ay dadku ku soo hayaameen kana soo guureen dhul aad u fog gowsowne Faraguul maxay tahay Bancad oo dhan dadkii joogay ayaa aadan isugu yimi meeshaan aragtaan xaaluf xoolihii ay keeneen waa kuwa halka fadhiya cunto la'aan biyo la'aan hoy la'aan dad iyo dunyaba waxay dadkii ay taagan yihiin meesha oo iyagoo aan haba yaraatee wax alla waxay haysan jirin waxaanu maanta aan soo gaarsiinay biyihii ugu horeeyay oo ayaan keenay halkan isla markaana waa ka dadkii xoolahoodii mid dhinac walba inaga xigaan dadku waxay u baahan yihiin hoy iyo cunto iyo waxay cunaan iyo dhamaantood dadkaas iyo xagga caafimaadka oo xataa dadka iyo xooluhu labaduba waxay u baahan yihiin caafimaad iyo baahan yihiin sidoo kale waxa iyaguna ka hadlay dadka deegaankan ee abaaruhu ku habsadeen waxayna baaq u dareen xukuumadii bulshadu ku dooratay codka aqlabiyada bulshadana waa kuwa ay ka muuqato diiftar xoolahooduna waa kuwa abaaracay abaartu waa mid ku soo noqnoqotay waa deegaankan balse waxa nasiib darro ah mas'uuliyiinta ka soo jeeday deegaankan oo waqtigan ku jira olole siyaasadeed oo ay bulshada jeesatay midkoodba midka kale kaga soo ceshanayo ayadoo ay deegaanadiina ka jiraan abaaro baan balaaba haddii dadkan abaaruhu haleeleen gurmad degdeg ah la soo gaarin waxaa khatar ku jirta nolosha dadkan waxaana si dabar go'ayo xoolihii ay ku tiirsanaayeen waxaanu nahay beelaha soo guuray ee ku soo guuray tooga dhoomo iyo carraweyn helay deegaanka ah baanu nahay waxaanu weynay biyi baa naga go'ay baadkii baa go'ay xoolii baa dhintay ilaah baa se wax bixiya waxaan noogu daran hadeer biyaha
biyaha noogu daran dadkii aanu doranay waa yeelkii iyo midnana ma hayno iyo dawladdii aanu sheegin reer miyaanu hayno malaade dad baa naga dhex bayda annagu waxba ma arag yaa annagu waxa ma arag ruush caraale haddii allaba ku rooyay rag yahaanu lahayn yaa ma hayno weeye dee degdeg baanu doonahay ilaah baa wax qabtay ilaah haddii intaana lagu soo dadkii harraad buu idlaa بسم الله الرحمن الرحيم وعنو هالكن بعض قدرنا حكومة الصومالي لان هذا صنفلك كوا على مجال كوا كلا تمبرير جابا دجاج بلارن بارن هاي آد بدتك يحولوا بوجلسي الحمد لله إلهي باب دق بحية وحنولنا هاي تجارته حكومة حلدمانada halala soo gaaro dadka gurmad mid biyood ogeysiinayna xukuumadda Soomaaliland ariga halka yaala waqtigiisa aragtaan $500 baan ku soo qaaday waana ka waqtigiisi waxaana la yiri nin baa wuxuu yiri laba tuka wixii sagaag miyaad aragtay nin iyo wixii sagaag baa la yiri ana way aragtaan anigana way aragtaan waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda Soomaaliland inay dadka abaaru way dhici jireen anigu waxaan ahay nin da'weyn daba dheer baan joogay kuwa kale ka xun baan joogay way dhici jireen abaaruhu laakiin dawladda u gurman jirtay ilaahayna waxaanu ka baryaynaa in ilaahay naga saaro waxaanu xukuumadda Soomaaliland ka codsanaynaa dadka gurmad ha saarto waxooda waa maxamed aydhaf wararka bulsha TV degmada Garadag